بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال kusoo dhawaada cashirkeena saddexaad oo ka hadlaya talaalka haduu Ilaahay ka raali noqdo waxaan uga hadli doonaa maanta talaalka la siiyo caruurta yararka oo loo isticmaalo markaasi in looga hortago dabaysha intaanu ka hadlin sidii caadada noo ahaan jirtay talaalka waxaan ku hormarnaa inaan ogaano cudurka laga talaalayo markaasi shakhsiga maantana waxaan ka hadlaynaa haduu Ilaahay ka raali noqdo waa dabaysha marka waxaan rabnaa inaan isla qeexano isla ogaano waxa ay tahay dabayl ayada naftarkeedaba waa inaan isla fahanaa haduu Ilaahay ka raali noqdo slide ugu horeeya markaas ayaan waxaan ku fahmi doonaa dabaysha waxa ay tahay gadaalna waxaan kaga hadli doonaa talaalka markaasi iyo noocyadiisa canuga markaasi la siiyo dabaysha si looga hortago waaya marka waxaan rabnaa inaan isla ogaano poliomyelitis maxay tahay poliomyelitis oo Soomaalida ay u taqaano dabayl cudurkan dabaysha sidiisaba muxuu yahay taas oo aan sida wada ognahay dabcan inuu san lahayn wax daawa laakiin uu leeyahay ka hortag oo kaliya si aan markaasi u soo koobno warka aan isku badin dabayl waxa sababa virusna waa sida ognahay noole ilma aragto ah noolahaas ilma aragtada ayaa sababa markaasi dabaysha kaasoo markaasi ku dhaca oo caabuq ku rida waxa loo yaqaan markaasi midcirada viruskaas ku rida midcirada caabuqa ayaa sababa dabaysha entry into the mouth marka afka ayuu qofka ka soo galaa wuxuuna ku bataa markaasi dalqada afka ayuu ka soo galaya viruskanu ilma aragtada kadibna wuxuu ku badanayaa dalqada wuxuu u sii gudbayaa markaasi mareenka mindhicirada iyo caloosha isla markaa wuxuu u sii gudbayaa local lymphatics oo ah markaasi qanjirada gudaha ah kadib ayuu wuxuu ku fidayaa dhiiga ayuu raacayaa dhiiga markuu raaco qanjirada ayuu sii gaarayaa sidoo kale iyo habdhiska dareen wadayaasha dhexe oo loo yaqaan central nervous system ayuu kadib sii gudbayaa isla waxaan ka hadlaynaa viruskani si uu u sababo markaasi qofkii u curyaamiyo dhibaato ugu keeno wuxuu ku sii fidayaa virusku ama noolahaasi wuxuu ku sii fidayaa nerve fibers ama miiqmaaqyada dareen wadayaasha ayuu ku fidayaa bacdigeedu wuxuu burburinayaa motor neurons oo ah dareen wadayaasha dhaqdhaqaaqa sameeya sida uga jeedin dhankeenan slide-ka waxa ku yaala caruur saddex oo markaasi noqday curyaan sida u jeedin qofka meeshii uu ka curyaamo lagama yaabo inay dib u soo noolaato oo ay la ekaato jirka intiisa kale ama ay shaqo qabato intaba lagama yaabo waayo waa la burburiyay dareen wadayaashii qaybtaas qaabilsanay haddii aan sii wadno markaasi calaamadaha lagu garan karo dabaysha ilaan ayada waa isla fahnay calaamadaha lagu garan karo aan dhihi karno shakhsigani dabayl ayuu qabaa maxay noqon karaa markaasi dadka ugu badan ee markaasi cudurkani dabaysha qaaday calaamado maba ay soo bandhigaan dhamaanba ama waxa laga yaabaa inay calaamado khafiif ah ay keenaan ayaa laga yaabaa calaamadahaasi caadiyan waxa ay dhacaan 3 ilaa 35 maalmood kadib markii uu qofku cudurka qaado calaamadahaas yar ee aan ka soo hadalnay ee khafiifka ah ayaa waxa kamid noqonaya qandho inay qofka qabato inuu qofkii daalo madax xanuun ayaa kamid noqonaya inay dhuunta xanuunta ayaa kamid noqonaysa lalabo iyo matag intaas ayaa markaasi calaamadaha khafiifka ee lagu yaqaano laakiin xaaladaha qaar xanuunka ayaa wuxuu noqonayaa mid aad u daran calaamadahana waxa kamid noqon kara murqa xanuun aad u daran ayaa kamid noqon kara iyo qalafsanaan qoorta iyo markaasi dhabarka ah ee shakhsiga lagu arko inuu laameen qoorta iyo dhabarka yaani ayaa kamid noqonaya waxa kale markaasi dhici kara inuu curyaanimo muruqi ku imaato muruqii markaasi saamida viruskani inay curyaaman ayaa dhici karta dad aad xaddigoodu u yaryahay ayay markaasi ku dhici karaan ama xaaladaha qaar ayay ku dhici karaan sidoo kale waxaa dhici karta dhimasho haddii muruqa neefsigu uu noqdo mid curyaamay ayadana waxaa dhici karta markaasi dhimasho calaamadahaas ayaa lagu yaqaanaa dabayshii dabcan sidee u fidaa marka dabaysha haddii aan fahanay calaamadaha ayadu waxay tahay qaabkii u fido sidaan casharada hore usoo sharxi jirno kale ayaan rabnaa inaan ogaano ayadana sida markaasi ay ku fido dabaysha ayaa waxay ku fidaa markaasi taabasho uu qofkii taabto saxarada ama dheecaanada ka imaanaya dhuunta ka imaanaya markaasi qofkii qabay cudurka
dhacaanada ka imaanaya qofkii qabay cudurka dhuuntiisa ama saxaradii qofkii qabay cudurkii oo la taabto ayaa lagu kala qaadaa. Sidoo kaleeto si markaasi qofku oo u qaado dabaysha waa inuu laqaa ninka la yiraahdo fayraskani sababa cudurkan dabaysha. Si qofka u qaado ayaa waxaa waajib noqonaya inuu qofkii laqo oo afka u ka qaato. Tani si fudud ayaa waxay u dhici kartaa markii gacmaha wasaqaysan ama shayasha wasaqaysani oo qofku afka geliyo. Mathalan gacantaadii saxarada ku taabatay oo wasaqaysneed ayaad afkaadi gelisay, ama shay markaasi wasaqaysan oo saxarada ay taabatay ama qofka afka uu ku qabtay caabuqa qabay ayaad afkaada gelisay. Sidaas ayaad simple ku qaadi kartaa. Waxaan rabaa inaan si la ogaano markaasi qaybaha loo qeybsho talaalkan loo isticmaalo oo looga hortago dabaysha, maadaama isla soo fahanay dabayl waxay tahay iyo sida loo kala qaaday calaamadaha loo garto. Waxaan haddana isla fahmaynaa marka talaaladan loo rabo in looga hortago imise ayaa loo qaybiyaa. Talaalada waxaa jirta laba qaybood oo aad u waaweyn ee markaasi loo isticmaalo waxaan loo yaqaano dabaysha in looga hortago. Labada qaybood ayaa waxay kala yihiin inactivated vaccine and live attenuated vaccine. Talaal markaasi la dilay ama talaal la tabardarisiiyay, labadaas ayaa loo isticmaalaa. Talaal la dilay iyo talaal la tabardarisiiyay. Sidaa daraaddeed talaalka la dilay ayaa waxaa loo yaqaanaa markaasi IPV ayaa loo soo gaabshaa inactivated polio vaccine oo ah talaal la dilay ee loo isticmaalo dabaysha. Talaalkaas oo markaasi cirbad ah oo qofka laga siiyo lugta bidix laga siiyo muruqa xagal 9 lagu duro. Talaalka kalena waxa waaye oo Soomaalidu aad u taqaano waa live attenuated vaccine oo loo yaqaan OPV oo ah talaalka afka laga siiyo caruurta oo labada dhibcood afka looga dhibciyo si fiican loo yaqaano oo badanaa outreach-ka lagu arko dadka xaafadaha wareejiya. Sidaa daraaddeed labadaas qaybood ayaa loo qaybiyaa, mid afka laga qaato iyo mid laga qaato lugta cirbad ahaan loo isticmaalo. Midka laga qaato lugta haddaan ku hormarnay cirbada ah ayaa wuxuu bixiyaa difaac aad u sareeya markaasi ayuu shakhsiga siiyaa, wuxuuna ka siiyaa calaamadaha loo yaqaano dabaysha ayuu ka siiyaa. Talaalka IPV-da loo yaqaan inactivated polio vaccine ayaa wuxuu dhaliyaa oo soo daayaa difaac jawaab celin difaaci aad u sareysa. Sidaan ognahayna fayraskani markaasi sababa dabaysha ayaa wuxuu sidoo kale ku gudbaa afka dhacaanada ka imaada. IPV ama midkan laga qaato lugta talaalkan lugta laga qaatay dabayshana ayaa wuxuu difaac u dhaliyaa sida OPV-da ay difaac u dhaliso. Markii loo fiirsho xiritaanka noocan ah in fiditaanka inuu afkii dhacaanada ka imaanay oo ku fido. Yacni waxaa loola jeedaa haddii aan soo koobno talaalka lugta laga qaatay dabaysha ayaa asna wuxuu difaac ah inuu qofkii afka ku gudbi weyso cudurkii ayaa wuxuu u dhaliyaa sida uu u dhaliyo midka laga qaato afka. Si kastaba ha ahaatee on its own waxaa loola jeedaa IPV-da ahaanteeda sooma saarto ama ma dhaliso difaac la eg midka uu dhaliyo kan afka laga qaato ee markaasi lagu difaacayo ama difaac ahaan mindhicirada xaggeeda. Marka loo fiirsho difaaca mindhicirada ee uu dhaliyo midka afka laga qaato ma dhali karo midka laga qaatay lugta. Halkaas ayaan waxaan u gudbaynaa qaybihii loo qaybinayay ayadana haddii aan hore u sii wadano. Markii la fiiriyo OPV-da talaalka laga qaato afka ee dabaysha markii shakhsigu uu qaato fayraskaasi talaalka uu ka samaysan yahay maadaama uu yahay virus la tabardarisiiyay oo loo yaqaano live attenuated oo ah virus ama noolal maragtaa oo virus loo yaqaano la tabardarisiiyay maadaama uu yahay qofka waxay noqonaysaa markaas inuu af ahaan inuu laqo inuu afka ka qaato ay noqonaysaa waayo laba daroob ay afka laga siiyaa. Kadib kaas afka uu ka qaatay ayaa wuxuu ku badanayaa mindhicirada wuxuuna dhali karaa 3 jawaab celin difaac ah ayuu dhalin karaa. Jawaab celinta difaaci kood waxa waaye humoral immunity. Waxa humoral immunity loo yaqaanaa difaac uu ka dhaliyo dhanka dhiigga. Waxaana laga wadaa si kooban presence of antibodies in the blood preventing the virus from invading the nervous system and causing paralysis. Waxaa ahaanshaha ay xaadir ku yihiin difaaca jirka oo xaadir ku yahay dhiig dhexdiisa asigoo ka hortagaya fayrasku inuu ku duulo habdhiska neerfaha oo markaasi sababo curyaannimo. Taas ayaa waxa loo yaqaanaa humoral immunity. Oral mucosal immunity haddii aan ayadana markaasi aan fiirino waxa waaye difaac ah
habka afka ama afka qofka waxyaabaha oo ka keeno difaaca xaggooda laga dhalinayo. Tan ayaa waxay ka hortagtaa soo saaritaanka fayraska in markaasi oo soo raaco waxyaabaha dheecaanada ah afka qofka ka soo baxaya, iyo inuu isla markaasi gudbitaankiisana wuu ka hortagayaa oo ku gudbayo qaabkan. Qofka inuu soo saaro oo afka oo markaasi fayraskan ka soo saarana wuu ka hortagayaa, inuu gudbiyana wuu ka hortagayaa, labadaba wuu ka hortagayaa markaasi. sidoo kale difaaca uu dhalinaya saddexaad waxa weeye intestinal mucosal immunity. Intestinal mucosal immunity waxaa loola jeedaa markaasi difaac oo ka sameynaya dhanka mindhicirada mindhicirada xaggeeda difaacaas oo ka sameynaya. Si kooban, mindhicirada xaggeeda difaaca marka laga sameeyo waxay ka hortagaysaa soo saaritaanka fayraskani dhanka saxarada lagu soo saarayo, oo qofkii qabay cudurkani loo yaqaano dabaysha haddii uu saxaroodo markaas saxariis qof kale ay taabato gacantiisa afka uu galiyo, sidaa ayuu ku qaadi lahay. Haddii la siiyo marka talaalkan labadii dhibcood ee afka laga siinayo, wuxuu qofkii awood u yeelan weynayaa inay saxaradiisii ku gudubto fayraskani. Si kooban marka waxaan rabnaa inaan usoo koobno IBV, talaalkani loo yaqaan inactivated polio vaccine ee ah markaasi talaalka la dilay dabaysha loo isticmaalo. waxaan rabnaa markaasi saan usoo koobno IBV may contain traces of erythromycin, neomycin and polymyxin B. talaalkan loo yaqaan IBV ee lugta laga qaatay loo isticmaalo dabaysha ayaa wuxuu ka koobnaan karaa xaddi aad u yar markaasi qallajiyaashan antibioticskan erythromycin, neomycin iyo polymyxin B. saddexdaas ayuu markaasi ka koobnaan karaa. markaasi waxaa laga qaadanayaa intramuscular or subcutaneous ayaa loo qaadanayaa. waxaa laga qaadanayaa markaasi muruq ayaa laga qaadanayaa ama waxaa laga qaadanayaa baruurta. waxaa laga qaataa lugta bidix dhexdeeda ayaa laga qaataa, xagal 9 ayaana qofka la duraa, muruq ayaa la gaarsiiyaa haddii muruq tahay. haddii baruurtana baruurta ayaa markaasi laga duraa markaasi. haddii aan fiirino foliumka qofka uu ka qaadanayo, wuxuu ka qaadanayaa xaddi ah 0.5 ml ayuu ka qaadanayaa. xaddi ah 0.5 ml sidii maxaan ku dhahay bentadii iyo TT-dii wixii lamid ayuu ka qaadanayaa. waxaana la siinayaa dooska koobaad. inta badan waxaa la siiyaa dooska koobaad waxaa lala siiyaa benta 3 and OPV 3. canuga markuu qaadanayo benta 3 and OPV 3 ayaa Soomaaliya sidaan inagu ku aragnay ayaa laga siiyaa. markii bentaha laga siiyo lugta midig xagal 9 ayaa IBV-da waxaa iyadana laga siiyaa lugta bidix xagal 9 laga siiyaa. OPV 3 waa loogu daraa markaasi xanuga. waxaa lagu keydiyaa heerkul +2 ilaa +8 degree centigrade ayaa lagu keydiyaa. loomana baahan in IBV la qaboojiyo, maxaa yeelay haddii aad loo qaboojiyo waxtarkeeda halkaas ayuu ku dhamaanayaa. IBV sidaad u jeediin dhaladan ayay ku jirtaa. dhalooyinkeedu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran wadanka soo saaray, laakiin dhaladan ayaan markaasi aan isticmaalaynaa. dhaladan aad u jeediin waxaa ku jirta 5 doos ayaa ku jirta markaasi. waxaana laga duraa lugta bidix xagal 9 sidaad u jeediin dhakhtaradan ay u dureysaba. contraindications to IBV waxay leedahay markaasi IBV-da waxyaabo looga digayo oo aan la isticmaali karin oo lid ku ah qofkii inuu isticmaalo. IBV-da markaan ka hadlayno looma baahna inuu qaato dadka markaasi qaba allergic ama xasaasiyad hore loo diiwaan geliyay ama lagu ogayba. haddii marka IBV-daasi ay ku jiraan qallajiyaashan erythromycin, neomycin and polymyxin B ah, looma ogolo in la siiyo shakhsigaasi. haddii dooska hore la siiyay sidoo kale qofkii xasaasiyadaas ay ku kacdana looma baahna in mid labaad loo celsho. guud ahaan talaalada looma baahna in la siiyo canug qaba markaasi shuban ama matagaya. sidoo kale lama siiyo talaalada guud ahaantoodaba aan ka hadalnay canug markaasi nafaqo-darro aad u daran haydo iyo immunodeficiency children, caruurta markaasi HIV qaba ayaa loola jeedaa, AIDS-ka qaba. haddii aan OPV aydan description yar aan u sameyno, aan OPV talaalkan afka laga qaadanayo oral polio vaccine ayaa laga soo gaabshay OPV. waxaan rabnaa ayadana inaan soo koobno
waxay leedahay wax loo yaqaano zero dose ama dose aan lambar lahayn oo loo yaqaano zero dose. waxaana la siiyaa 15 maalmood ugu horeysay dhalashadiisa. waxaana lala siiyaa markaasi tallaalka qaaxada ama tiibishada ee hore uga soo hadalnay haddii casharada hore aad la socoteen ee ahaa BCG-da. tallaalkaas ayaa waxaa la siiyaa OPV 0 ama zero dose waxa loo yaqaano markaasi. waana 2 dhibcood afka ayaana laga siinayaa. dooska ugu horeeya iyo kan labaad iyo kan saddexaadba waxaa la siiyaa isbuuca 6aad, isbuuca 10aad iyo isbuuca 10 iyo 4aad ayaa waxaa lala siin doonaa talaalkan DBT-da marka hore ahay laakiin hadda bintada loo baxshay oo shanlaha laga dhigay. markaasi benta 1 iyo benta 2 iyo benta 3 ayaa lala siinayaa. canugii markuu dhasho oo 6 week u gaaro oo umusha ay ka baxdo habartu way soo celinaysaa. markaas ayaa waxaa loo siinayaa OPV 1 iyo benta 1 ayaa loo siinayaa. talaalka dabeysha afka laga qaato ee koobaad iyo talaalkan shanta cudur ka hortag ee bentaha loo yaqaan ee koobaad. kan labaad iyo OPV-da labaad ayaa ula jeedaa iyo bentada labaad oo isla qaadan doonaa bil kadib markuu soo laabto. kan saddexaad iyo bentaha saddexaadna isla qaadan doonaa. waxaana bisharada u dhaxaysa bil ayaa u dhaxaysa. markuu 6 week markuu jiro ay uu qaato OPV 1 iyo benta 1 10 bilood markuu jiro ayuu imaanayaa. taasoo 10 isbuuc ayaa ula jeedaa iga raalooda 10 isbuuc markuu jiro ayuu imaanayaa. taasoo micnaheedu ay tahay hal bil ayay maqnaayeen. 14 markuu jirana hal bil kadib waayaan saas ayuu u wadayaa insha Allah. waxaa jirta markaasi booster ama xoojiye oo afka laga siiyo xanuga. waxaa la siiyaa benta booster ayadana xoojiyaha talaalka shanlaha ah markuu 6 iyo 10 ilaa iyo 24 bilood canuga uu u dhaxeeyo ayaa la sii karaa. waa 2 sano ilaa 1 sano iyo 4 bilood ayaa loola jeedaa markaasi inta la sii karaa. talaalka afka laga qaato dabcan waa kana afka caaga ayaa uga jira. caagaas ayaa la qabanaya. looma baahna in la qabto ninka la yiraahdo dhalada haddaad qabato waxaa dishay talaalkii meeshan ku jiray. waayo haddii monitoringkaas ama baqshada yartaa u jeed halkaas ka dhigan haddii ay isku ekaato kalarkaas dhexo cad aad u jeedid haddii uu ekaado midka ku wareegsan talaalkaasi lama isticmaali karo. warka waxaa loo baahan yahay in talaalka laga qabto qaybta sare ee laga qabto. haddii uu kuwa kale yahay macdanka laga qabto kanna waxaa laga qabtaa caagan sare. caagaas oo la riixayo sida ugu jeedin meeshan qofkani soo u hayo oo canuga afkiisana saas ayaa gacanta loogu qabtaa. to darobis ayuu leeyahay hadduu mid ka qasaaro oo aad u fahamtid inuu gees kaaga dhacay afkiisa canug kamidana oo ka baxsan ay waxaa laga baahan yahay inaad daroob kale aad u celiso dhibax kale. halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa talaalkii dabeysha ee labada nooc ahay ee midna laga qaadanayay lugta bidix xagla 9 lagu durayay oo loo yaqaanay inactivated polio vaccine. talaalka dabeysha ee markaasi la dilay iyo kii laga qaadanaya afka oo loo yaqaan OPV ama oral polio vaccine. talaalka afka laga qaato ee dabeysha halkaas ayaan ka gudbaynaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. wixii faahfaahin dheeraadana dib ayaan nagala soo xiriiri kartiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.